كل وقت صعانية iyo xaflada markaasi hal socodkeeda oo gaabinaya haddaan ku bilaabo oo aan ka siiyo background ama profile markaasi iskuulkan ama kulliyadda markaasi caafimaadka ee loo yaqaan Shafi Medical College. Shafi Medical College waa kulliyad ka mid ah kulliyadaha gaarka loo leeyahay ardayda bara caafimaadka ee ku yaala caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland. كلية الطوارئ عاصمة جوها الأساسية لبدي كل استدي وحنا أساسي اليوم كل دوان وخبرة كل دوان ستعدد هاي الخاطير هديه النارس هديه اللابوراتوري هديه المرويفي هديه المقاسي خبرة كل كوميونيتي هاد كبابليك هاد كوي بجرا. اليوم تاسي واحد عاصمة لبدي كل استدي كي مركي أركان باهيها بحد وين عافماد يعني كذا عافماد كتاجر وده كان جاها عاصمة الكل كنا هاي إلا بهاي إلا هذا ضد هذيك عافماد كشغية أو كواليفايد أو حرفنا أو حسمنا أو دقنا أو أخلاقنا أو تبع سنينا أو داعتنا ماله حلي جوها باهية نقول على عافماد كوده كشرة إني بلاريين research عمل مبارسين كل دول ولا لسه ما يقولنا هاو بلغنا عاصمة Somaliland ee Hargeysa kabacdi waxa go'aansan dhalinyartaasi inay aasaasan kulliyad lagu tababaro ardayda kulliyadaas oo ka caawinaysa bulshada in ay soo saarto arday dhisan oo ku beesgaraysan aqoon xirfad gacan akhlaaq edeb iyo daacadnimo kabacdi waxa la isu yimid waa la gurfay arrinkii waxa markaasi suura gashay in markaasi kulliyadda nacagaha loo dhigo loo yaqaan Shafi Medical College. Shafi Medical College waa kulliyad loogu talagalay inay bulshada adeegyada caafimaad ay ka caawiso. Shafi Medical College looma sameeyo profit making ama in lacag lagu helo waxa loo sameeyay adeegyada baahiyaha caafimaad ee waddanka ka taagan in lagu kaabo in la helo markaasi dad aqoon leh xirfad leh diintooda iyo dalkoodaba u adeegaya oo u adeegaya markaa shacabweynahooda dhiban cid ay dhibaato soo gaadhay kulliyaddu waxay bixisaa koorsooyin kala duwan waxaa kowka qaybta markaasi ama Department of Nursing oo qaybta ugu ballaaran ee kulliyaddu ay soo saarto waxaa ku xigta departmentiga markaasi midwiferyska oo lagu tababaro maantii umulisooyinka oo ka mid ah markaasi baahiyaha aadka u waaweyn ee waddanka ka taagan maxaa yeelay waddankeena badanka waxaa ka shaqeeya markaasi midwiferys traditional oo habdhaqankii hore ku shaqeeya oo aan markaasi ku tiirsanayn aqoontan modernka ah ee casriga waxaa ku xiga departmentiga pharmacieska oo iyana lagu baro markaasi habka dawooyin bixinta iyo habka markaasi dispensary loo yaqaano hanaanka departmentiga pharmacy-gu inta badan waxa ardayda laga support gareeya sidii ay u sixi lahaayeen mar walba markaasi dawooyinka sidii ay dadka dawada uga sixi lahaayeen sidii ay waraaqaha markaasi uga caawin lahaayeen sidii ay dawooyinka markaasi saxda dadka u siin lahaayeen waxa ku xiga departmentiga markaasi laboratory-ga ama shaybaarka afarta department ayay ka kooban tahay marka kulliyadda Shafi Medical College afartoo shaqeeyaan afartoo madasha maanta ayay u fadhinaa in markaasi ay ku qalinjabiyaan oo qalinjabintooda ay ka qayb qaadano ku qalinjabiyaan aan yahay ardaygu markuu wax baranayo kolay marka dadka wax bartaa waa dad adultisa waa dad self drivers ama naftooda iyagu wada wadada waalidku uu contribution ka bixiyo balse iyagu caqliga iyo fikirka iyo waxbarashada la yimaada waxaan ardayda leeyahay maanta aqoonta aad barateen Allah ku anfaco Allah tii mustaqbalkiina inuu taa ka dhigo balse aqoonta aad maanta barateen waa furihii noloshiina aqoon waxaad heshay furiheedii albaabka gudaha idinka u gali kara idinka furaha haysta haddii aad gacanta ku haysataan oo idin haysan oo inta taasay ku koobnaan haddii kalena awoodaya u leedahay markaasi oo dhalinyaro ayaad u tihiin inaad sii wadaan markaasi oo markaasi diploma ka qaadanaysaan degree program qaataan إما مركزي إن ماستر يقول لتان إما إن PhD يقول لتان وقت هذا يكون بحا لحسن عام تدرس أنا يقف PhD ما تكون جالي على دبلوم تتاجر مركز واحد عبد دور شيء يعني نقلان عبد مركزي هالك كسي عم بقاله عبد أنا هالك مركزي كوه كرنين وهم يقول الصرايم وحوالين تلاقي هاي عبد على رأس الله مركز وحبرنا يعني إما contribution كلي أتلا يربح يوحى كفي عنا لو يعتبر دجاجه كلية دوتره سيد وحبرته absent تجلسه كوالدين بدل ما يجرا عروضه ده كده بيجرا نصح إلى كلية ده
intaan ka hadlin pointiga tilmaami doono insha Allah ee caafimaadka ku saabsan waxa la yiraahdaa berigii Soomaalidii hore baarlamaanada qaabkii markii ay yani intaan waxbarashada casriga iyo xal gaari ayaa nin odaya oo Caydiid dooran jiray ayaa wuxuu ka mid noqday xubnihii baarlamaanka ee la soo xulay kadibna waxa la keenay hoolkii shirka baarlamaanka ka dhacayay kadibna waxa lagu yiri waxoogay markii xafladdu socotay baarlamaanka howlihii hore laga dooday Caydiid oo maanta maxaa mowduucii ka fahantay ninka odayga wuxuu ku jawaabay gidigii maanta anigu waa maqnaa waxaan ku maqnaa furniture-ka waaweyn iyo miisaantan iyo qaabkii qol guriga loo soo geliyay macnaha waxa isku qaban waayay furniture-kii guriga lagu dhex xidhay ayuu qaatay iyagoo inta la leegay kaliya laga soo geliyay marka mowduuciinaba inta badan ama hawl kala ku mashquulsanaa buu ninka odayga anigu maanta oo dhan waxaan ku mashquulsanaa oo la dhacsanaa runtii maxadkan caafimaadka ee la yiraahdo Sharp Medical College muddo 5 sano gudaheed waxa la aasaasay lagu yiraahdo 2008 ilaa maanta oo 2013 marayno 5 sano gudahood horumarka ay ku talaabsadeen iyo waxa ay soo saareen ayaa isku qaban lahaa marka yani aad iyo aad baan arrinta uga fikirayay waana la dhacay runtii aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxa weeyaan akhlaaqiyadka qofka health professionalka ama caafimaadka ku shaqeynaya title-ku doonaba ha yeesho ama dhakhtar ha ahaado ama nurse ha ahaado ama lab technician ha ahaado ama pharmacist ha ahaado akhlaaqda la doonayo inuu bukaanka ku qaabilo akhlaaqda la doonayo iyo weyga la doonayo inuu bukaanka ula dhaqmo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waalidiinta oo xafladan aad ka quruxda badan leeyahay dhamaantood sababa inta maqan iyo inta joogtaba waxaan leeyahay hambalyo iyagaana sababay kuna garab galay inay xafladan aad ka quruxda badan leh maanta ay dhacdo ka suko Ilaahay marka labaad waxaan u mahadnaqayaa marti sharafta kala oo dhan waxaan leeyahay kusoo dhawaada xafladda marka saddexaad waxaan u mahadnaqayaa macallimiinta ee sharafta leh dhammaantood waqtigooda caafimaadkooda iyo noloshooda noo furaysay u soo saar lahaayeen ardayda quruxda badan ee maanta arkaysaa waxaan Ilaahay uga baryaa dhammaantood cimri dherer iyo caafimaad qab iyo intan iyo in ka badan ay ku guuleystaan inay arday intan ka badan ay soo saaraan waxaan kaloo gaar aad iyo aad aan ugu mahadnaqayaa dhammaan ardayda qaltabinaysa oo dhan oo leeyahay maanta dad shahaado qaadateen ma aha inaad digtooratiin ama aad qalinjabiseen qalinkuma dhammaado waxaan leeyahay weligiin ku dadaala inaad intan iyo in ka badan baad wadankiina iyo dalkiina baad nafacdaan noqotaan insha Allah kuwii wadanka wax badan u qaban lahaa waxaan leeyahay intaa kaga hadhina insha Allah mustaqbalka noqdo digtoorinka wadanka waxaa kaloo u mahadnaqayaa mar labaad macallimiintayda qaaliga runtii muddo badan baan soo dhiganaynay 2 sano iyo badh baan soo dhiganaynay caafimaadka in badan dhibaatooyin badan iyo adeeg badan waan la kulannay siba waqtiyadii aan ku jirnay baratiga samaynaynay alxamdulilah rabbil caalamiin maanta dhinac walba waan ka dhammaystiranahay waxaanan ku rajoweynahay in badan inaan wadankayga iyo dalkayga iyo dadkayga baan wax badan u qaban doono runtii farxad weyn bay noo tahay inaanu idinkala soo qayb gallo maanta munaasabadan qiimaha leh ee ay dhalinyartu ku qalinjabinayso kana qalinjabinayso kulliyadda Sharp Medical College marka hore waxaan runtii hambalyo ballaaran u dirayaa waalidiinta dhashay ardaydaasi wiilal iyo gabdhaba isugu jira oo runtii muddo sanada sidaan filayo hawsha ku soo jiray macallimiintii u dhabar adaygay ee tababarka iyo aqoonta xirfadeed runtii u kordhinayay aad iyo aad baan runtii u hambalyeynaya waxa weeye Somaliland runtii dal curdina oo u baahan aqoonta kale qaybo fara badan baa runtii maanta dhisan qaybaha xirfaduhu waa qaybaha runtii inagu yar ee u baahan inaynu runtii kobcino mana aha
maanta runtii aqoontii oo ay dhammaystireen laakiin daaqadoodii baa u furmatay waxaan ugu rajaynaynaa runtii kol haddii daaqadu ay kuu furmato inaad albaabadana furato oo aad sii socoto oo aanad halkaa ku ekaanin farxadda labaad ee runtii meesha ku jirtaa waxa weeye inay gabdhuhu aan arko college-kii u horreeyey ee gabdhuhu ay wiilasha ka fara badan yihiin runtii arrintaasina waa farxad aad iyo aad u weyn waxaanan rajaynaynaa mustaqbalka inay habluhu tartan xoog leh la geli doonaan inamada oo had iyo jeer la yidhaahdo waalidku xagga waxbarashada iyo dadaalkooda waxa ay saaraan dhinaca inamada oo qura markaa taasina waxaan rajaynayaa inay maanta beenowday oo ay waalidku u siman yihiin oo weliba hablihii u badiyeen aad iyo aad baana waalidiinta ugu mahadceliyay caafimaadku ama xirfadan maanta ay barteen dhalinyartani runtii xirfadaha muhiimkaa weeye cudurro fara badan baa jira nidaamyo fara badan oo runtii dhinaca caafimaadka inaga khaldan oo aynu u baahannahay inaynu isxanaa jira ama ha noqoto habka farmasiga ama daawayiibinta ha noqoto ama umulisooyinka ha noqoto ama ha noqoto haddii ilaahay badankeed ku leey qaybaha kala duwan ee ay dhalinyartani baratay waa xirfadaha runtii aynu u baahannahay inay aqooni hagto oo qaarkood qofku dee dukaanuu iska soo fadhiisanayay qaab dhaqameedna ay umulisooyinku badana ay ku shaqayn jireen oo qofka runtii ay dumarkaa halis fara badan runtii ay kusoo gaari jirtay markaa runtii waxaan u rajaynaynaa inay wax badan kororsadaan aqoontooda inay sii wataan waanan u hambalyaynaynaa Shaafi Medical College hawsha wanaagsan waxaanan u rajaynaynaa intan iyo in ka badan runtii in ay soo saari doonaan Afghanistan